madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa saakay soo gaaray magaalada Tani Kismaayo xarunta maamul goboleedka Jubbaland waxaana geeyida diyaaradaha si diiran ugu soo dhaweeyay madaxweynaha maamul goboleedka Jubbaland mudane Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe labadiisa ku xigeen labada gole ee dawlad goboleedka Jubbaland iyo waliba baarlamaankii dhawaan lagu soo gabagabeeyay doorashadooda magaalada Kismaayo xarunta maamul goboleedka Jubbaland una matalaya maamul goboleedka Jubbaland dawladda federaalka ee Soomaaliya odayaasha dhaqanka iyo waliba bulshada qaybaheeda kala duwan salaan iyo soo dhaweyn kadib ayaa madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud waxa uu salaan sharaf ka qaatay cutubyo ka tirsan ciidamada federaalka ee Soomaaliya qaybtooda gobolada Jubbooyinka intaasi kadib ayaa madaxweynaha waxa loo gudbiyay hoolka nasashada aeroportka magaalada Kismaayo halkaas oo ugu horeyn uu ka hadlay goobta mudane Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe waa madaxweynaha maamul goboleedka Jubbaland bismillahir rahmaanir rahiim wa bihi nasta'in ala umuri diin wa diin sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi waxaa sharaf weyn noo maanta inuu la soo booqday madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud madaxweyne waxaan ku leenahay ku soo dhawaad magaalada Kismaayo xarunta ku meel gaarka ee dawlad goboleedka Jubbaland ee Soomaaliya iyadoo baryahan aad mashquul loogu ahaa intii doorashooyinka in kontonka kooga xubnood ay maanta ku dhaceen doorashadu si nabad ah iyadoo aan isleeyahay si amni ah bay u dhaceen xaqaan aanu ma moodi jirin in bahasha xamaasadda inta la eegay haday dhibka inta la eegay buuqaalada waxaan oran lahaa war odayaasha loo daayay laakiin waxaan aragnay dhib badan oo culays inuu soo kordhisay xamaasad badan laakiin ay u muuqanaysay deegaanka iyo dadku nooc doorashii inay jirto oo campaign-ka jira iyo socodka iyo culays badan aan ka dareemayno intii ay socotay waxaan u malaynayaa hal shil baa dhacay wax geeri ah Allahu naxariis hal qof baa ku dhintay oo xamaasadii iyo isqaqabsigii qayb ka mid ahaa waxa kale madaxweyne waxay noogu dhamaatay si fiican way joogaan hadda xildhibaanadii waxaan lahayn hal mar iyagoo waxooda u dhameystiran yihiin inaan wareejino oo xarunta caasimadda jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya aan ku wareejino xildhibaanadii oo socda intaasi kadib ayaa dhankiisa madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud waxa uu bogaadiyay maamul goboleedka Jubbaland waxaana uu ku bogaadiyay sidii ay u soo gabagabeeyeen doorashadii dhawaan ka dhacday magaalada Tani Kismaayo xarunta maamul goboleedka Jubbaland isagoona maamulka ku amaanay amniga iyo waliba maamul wanaaga madaxweyne Axmed aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay soo dhaweynta iyo qadarinta iyo marxabeynta dhammaan shacbiga reer Jubbaland iyo madaxdooda iyo mas'uuliyadooda xukuumadda oo madaxweyne Axmed oo weey madaxweyne ku xigeenada dhammaan xubnaha baarlamaanka aad iyo aad ayaan uga mahad celinayaa soo dhaweyntii qiimaha badnayd ee diiraneed ee la soo dhaweeyay midda labaad waxay tahay muhiimadda safarka aan meeshaan u nimaday waa dhowr arrimood midda ugu horeysa xukuumadda ama dawladda Jubbaland iyo shacbigeedaba inaan ugu hambaliyayno guusha ay ka gaareen arrimaha doorashada oo ay noqdeen kuwii ugu horeeyay ee soo gabagabeeyay doorashadii labadii aqal ee baarlamaanka federaalka ah oo sida madaxweyne Axmed uu sheegay si nabada ku soo dhamaatay ilaahay mahadiis guud ahaanna dalka doorashada ka socoto dhanba sidaas ay ku socotay si nabada oo dhib yaraan ah oo colaadda iyo cunfiga doorashada la socdaahay meelo badan caalamka lagu yaqaanahay Soomaaliya maanta inaanay ka dhicin oo aan lees dilin oo aan la si kala qaybsamin oo dadkii aanay nidaamkii doorashada aan isku qad waa run nidaam xogaa culus lagu cusub lagu dhib badan oo ahaa annaan garanayn waayo aragnimana aan loo lahayn laakiin muxuu ahaay sida ay u dhaceen oo mahadeeda ay leeyihiin runtii shacabka Soomaaliyeed guud ahaan gaar ahaan mas'uuliyiintii mas'uulka ka ahaa xarumihii iyo dawlad goboleedyadii muxuu ahaay dhaqan geliyay ama suurto geliyay doorashooyinka inay dhacaan gudiyadii madaxa banaanaa ee heer deegaan iyo heer federaal intaba lahaa ee ayaguna ka shaqeeyay dhammaan howl loo wada guntaday oo runtii dadka Soomaaliyeed oo dhan shacab iyo mas'uuliyiin bay u istaageen ay ahayd alxamdulillah marka arintaasi Jubbaland waa aad iyo aad ayay ugu amaanan tahay waan ku bogaadinaynaa horeyna waan ugu bogaadinay waa taan ka soo saarnay statementigii maalintii ay doorashada gabagabeeyeen hambalyaan leenahay
si kastaba ha ahaatee madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya ahna u tartamaha xilka madaxtinimada dalka Soomaaliya ayaa goobta ka sheegay inuu yahay musharaxa u taagan xilka madaxtinimada Soomaaliya waxaana la filayaa inta uu magaalada Kismaayo ku sugan yahay mudane Xasan Sheekh Maxamuud inuu kulamo la qaadan doono labada gole ee baarlamaanka dawladda federaalka ee Soomaaliya dhawaan lagu soo doortay magaalada tani Kismaayo iyo waliba mas'uuliyiinta ugu sareysa maamul goboleedka Jubbaland Cabdullaahi Cabdi Cali Rubaayere TV-ga caalamiga waa bari magaalada Kismaayo.